ninkan digsigan shaaha saarana intuu u imaado wuxuu ku shubaa yaanyadii uu watay kadib midkii shaahii karinaya wuxuu weydiinaa meesha maxaa ka haydaa wuxuu ku dhahaa shaaha inuu diyaar yahay in kala fiirinayay saaxiibo hadda orod bax alaabta dhaq shaaha anaa karinaya midkaana wuxuu taagay anoo alaab dhaqo ii soo diraamaya laakiin maxaa ka rabtaa maanta waa ceebeenahay kadib midkaana imaana isagoo raba shaahi inuu sii karsado kana wuxuu ku dhahaa laba koob shaah oo kalkacsan oo keen oo caleenta ay ku badan tahay midkaana wuxuu ka codsanaa inuu isaga fadhiisto wuxuu kaloo sheegaa shaaha caleenta ay ku yartahay inuusan rabin isagana hayuu ku dhahaa waa kuu keena ay sii fadhiiso midkaana wuu soo baxaa wuu fadhiisanaa adigana muuqaalka laagma saarin midkaana wuxuu weydiinaa dadka Yurubta ku nool in la soo celi rabo ee warkaas maxaa ka jiro ku dhahaa saaxiibkiisina wuxuu ugu jawaabaa inay sax tahay arrinkaas oo dadkaas la soo celi rabo laakiin adigu ku faraxsan tahay ku dhahaa in la soo celiyo dadkaas isagoo sheekadii sii wadaa wuxuu wacaa midkii shaah karinaya shaah noo keenay ku dhahaa midkaana diyaar waa ku dhahaa waa idin keena isuga midkaana ilaahay u baryaa wuxuu taagan ilaahay maanta shaah ugu ceebeynay isla markiina wuxuu bilaabaa inuu shaahi shubo wuxuu ku dhax arkaa shaah oo yaani lagu dhax kariyo maxaa qaldan ku dhahaa ayaa saan yeelay maanta xogaa kadib isagoo wareersana waxa uu imaanaa midkii la shaqeynaa wuxuu ku dhahaa saaxiibo labadaas nin waa taqaana shaah kala kacsan oo caleen lay jecelin haddana aniga miiskaas sii titara adigana shaah u sii boobsiyay isagoo aad u welwelsan oo naxsan oo wuxuu dhahaa maxaan sameeyaa maanta isagoo aad u welwelsanaa waxaa ku soo dhacay isla shaaha inuu ka gado oo yaanyada ka miiro isla markiina wuxuu soo qaadaa shaahi nimankii uu keenaa kana wuxuu ku dhahaa waa fasaxan tahay isagoo aad u welwelsan oo ka soo tagaa midkaana saaxiibkiisa wuxuu u sheegaa maqaayad ka fiican inaysan jirin shaahid uu dhidhimiyo maanta kana shaahi markuu cabo wuxuu dareemaa inuu shaaha aad iyo aad u mac yahay midkii shaahi yaanyada ku darayna waa kana wuxuu taagan maanta maxaa ka rabtaa saaxiibkii nimankana ku ceebeenahay midkaana saaxiibkiisa wuxuu ka codsanaa qofka shaah kari inuu u waco kadib saaxiibkiisii fiqi oo waca kaale ku dhaha intii ugu imow isagoo aad u naxsan oo welwelsan oo isdhahay nimanka maanta maxay kugu sameyn doonaan oo uu imaana marka uu imaadana wuxuu weydiinaa qofka shaah kari yaabay isagana ani waayo ku dhaha midkaana wuxuu taagan qof adigoo kale waa raadinaa dhowr sano kadib laakiin maanta aan helay adigana maqaayada ana ka shaqeysa maba aanu ku dhaha kadibna ana ii gadan tahay anaan ii shaqeynay isagana wuxuu taagan ilaahay maad iskale laakiin wax walba saaxiibkii ayaa ka dambeeyay midkaana wuxuu taagan maqaayada ku dhino maqaayad fiican waaye isageena saaxiibkiisa ku mahad celinaa midkaan kale wuxuu ku dhaha nakeen maanta wixii ka bilaawta ana ii shaqeynay midkaana markuu arkay saaxiibkiisa maqaayada inuu aaga tagay oo ka soo daba ordaa midkaana wuxuu u sheegaa inuu maqaayada kaliisa oo ku soo haray oo haddana oo ka codsana inuu isagana gurigiisa boos ugu raadiyo oo uu rabo saaxiibkiisa inuu la shaqeeyo saaxiibkiisana wax walba uu ogyahay wuxuu ku dhaha anma ku shaqeynaa mas ninkaan ku shaqeynaa ii sheegniyo kadib adaa ii shaqeeyso ku dhaha ninkaan way iska reebayaan labadoodana way soo baxayaan adigana muuqaalka laag ma saarin kadib midkaana wuxuu u sheegaa inuu isaga yaanyo oo ku daray shaaha oo isaga mudnaa in la wado laakiin saaxiibkiisa taas hadda bedelkeeda oo la waday kana inta dharbaaxshay wuxuu ka siibaa koofida iga tagoon ku dhaha muuqaalkana intaan ayuu ku ekaa hadda inta soo gaartay laagno saar soo dhawaada wiilkan aad u jeedin waa caseeye midkii uu kabaha u caseynaya wuxuu arkaa inuu taksigiisii ka tagay kadib meesha isaga carara wiilka yarka dhulka wuxuu ka helaa bac ninka odayga ay ka dhacday markii uu fiiriyay inay lacag badan tahay arkaa sidoo kale wuxuu arkaa inay bacda lacagta ay ku dhex jirto gabar sawirkeeda bacdii intuu sii barbaaro wuxuu ka helaa gabadha adreeskeeda maadaama uu daacad yahay wuxuu go'aansanaa inuu lacagtan adreeskaas dib ugu celiyo xogaa badan oo soo socda ugu dambeyn gurigii gabadha soo gaara isla ayadii intii ka furtay wuxuu ku dhahaysaa maxaa rabtaa maxaa ka caawiya isagoo la hadlinaya haddana waxay ku sii dhahaysaa anaga sadaqa ma bixinay haddaa sadaqa u baahanto iska bax laakiin markii uu sheegay inuu lacag badan u hayo iyadoo qoslaysi soo laabanay markii ay lacagta ka qaadatay waxay ku dhahaysaa lacagtan aniga iska lahay waa iska bixi kartaa haddii aad isiis laakiin isagu ma baxayo wuxuu ka codsanaa inay galaas biyo u keento iyaduna waa tan ahay xaasinimo miyay ka taama aqaanin galaaska biyaha iyo cusbo ugu dhex daray markii uu arkay biyahan inay saa'id dhanaan u yihiin wuxuu ku dhahaa biyahan maxaa waaye laakiin iyadu waxay u sheegaysaa haddii uusan biyo rabin inuu iska baxo isaguna waa kan ahay ugu dambeyn wuu iska baxaa laakiin wuxuu ka tegaa gambarkii uu kabaha ku casiinayay xoogaa kadib aabaheeda guriga dib ugu soo laabanaya kadib wuxuu ku dhahaa guriga qof miyaa imaaday waxay ku dhahaysaa guriga waxaa yimaaday keliya kuwa qashinka qaado markii aan u sheegay inuusan qashin oolina waa iska baxeen kadib isagu wuxuu u sheegaa inay ka dhuntay lacagtii uu guriga keliyadeeda ku bixi lahay meel walbana uu ka raadiyey iyadana waa tan ahay waxay taagan tahay waa ka xumahay lacagta siday arki lahay dibaa kugu soo celi lahay isagoo guriga kasii baxayo wuxuu arkaa gambarkan guriga hor yaalo wuxuu ogaanaa wiilkii kabaha u casiinaya inuu lahay intuu soo baxo meeshii uu kabaha ugu casiinayo ugu keena annaguna waxaan ogaanaynaa wiilkan yarka iyo odagan inay isla shaqeeyaan oo keliya rabo inuu odagu ogaado gabadhiisa daacadnimadeeda isla markaas odayga gurigiisa waxaa imaanaya ninkan gabadhiisa intay albaabka ka furto wuxuu weydiinaa aabaheed meesha uu jiro wuxuu ku dhahaa aabaha waxaa lagu leeyahay lacagta kelida bilooyin badanna moosan bixin hadda waxaa rabay inaa u sheegay in guriga laga saari rabo marka hadda waa inaa igu wacdaa si aan guriga uga saaro iyadan marka arrintaas maqasho way yaabe iyadoo weli naxsan ayaa meesha waxaa soo gaaraya aabaheed wuxuu ku dhahaa way wanaagsan tahay haddii aad adigu timaaday waxaan rabay inaa kuu sheego gurigan in 3 maalmood lagaaga saari rabo wuxuu ka codsanaa inuu asbuucyo ugu daro maadaama laga xaday lacagtii uu guriga kelidiisa ku bixi lahay laakiin isagu wuxuu u sheegaa inay arrintaas macquul ahayn kadib gabadhiisa waxay dhahaysaa haddii ay arrintu sidaas tahay aniga xal keenaayo haddana anaga waxaan ogaanaynaa ninkani odagu inay isla shaqeeyaan oo keliya rabo odagu inuu ogaado daacadnimada gabadhiisa xoogaa kadib iyadii soo laabanaysa oo wado lacagta iyo wiilka yarka ka qaadaysay midkaana wuxuu taagan yahay lacagta aad hadda bixiseen hal bil oo keliya waaye ogaada waa nii soo laaba doonaa marka uu baxa aabaheed waxay ku dhahaysaa iga raali noqo arrinta inaad sameeyey ma rabin keliya lacagta waxaa rabay inaad wax ku gato kadib wiilkii yaraa intuu meesha soo gaaro odagu labadooda wuxuu u sheegaa inay gudaha soo galaan gabadhiisa wuxuu ku dhahaa qorshahan anaga dhan waa isla ogeen waxaan rabna in adiga ku tijaabino waxaan ogaaday inay daacadnimadaadu aad u hooseyso ayaantan aad been badan
ii sheegtay sidaas darteed ku tijaabinaynay waxay ka codsanaysaa inuu iska cafiyo oo ay kaliya rabtay lacagtaas inay alaab ayada qaas u ah ku gadato sidoo kale isaguna waa ku codsanaa hadda kadib inay noqoto qof daacad ah waxay bilaabaysaa marka inay wiilka yarkaayo caseeha ay ka raali geliso sidii ay markii hore ula dhaqantay muuqaalkun intaas oo ka ekaya hadda halka soo gaarta leegnosa labadan nin ujeedaan oo laba nin oo tuuga waxaanay bilaabayaan inay kiishka bariiska dilaaciyaan kadib shamiitadaas ama shaandhadaas ay soo dhigayaan kadib kiishka bariiska waxaa kasoo baxaya moobilo iyo telefoonno iPhone ah kadib laba nin oo tuuga waxaanay rabaan inay ninkan xadaan kadib ninka mootada wada ee ku wada bariiska ilaa hadda muusan ogaan kadib labadan nin markay ka waayaan telefoonada intii ugu dambeysay ay kala soo baxayaan kadib waxaanay bilaabayaan inay dib iskaga baxaan oo ay ka cararaan meesha kadib midkan booskiisa ayuu qaraacayaa waxaanu ka oranayaa boos waa ku soo dhawahay ayuu ka oranayaa kadib ninkan wuxuu bilaabayaa inuu joojiyo mootada ayaa ka halaabaysa kadib halka dambe ayuu eegayaa waxaanu ogaanayaa in kiishkii bariiska ay telefoonada ku jiraan lagala baxay oo la dilaaciyo oo laga xaday kadib ninka mootada watay waxa uu qaraacayaa booskiisa waxaanu u sheegayaa in laga xaday oo kiishkii bariiska ahaana laga dilaaciyay kadib labada nin tuugada waxay bilaabayaan inay halkan yimaadaan oo ay kasoo dhuuntaan ninkii mootada watay ay kasoo xadeen telefoonada kadib labada nin waa eegayaan telefoonada wixii ku jira kadib waxay bilaabayaan in ay kala qaybsadaan kadib midkaas iPhone-ada ayuu rusanaya kadib midkan uu ka qaadanaya wuxuu qoranayaa adiga halka telefoon qaado oo baxaya laga oranayaa kadib midkan ma yeelaya ayuu oranayaa waa soo wada xaday waa inaan kala qaybsanaa ayuu ka oranayaa kadib midkaas wuxuu ka oranayaa aniga ayaa fikradda keenay aniga ayaana qaadanaya telefoonada ugu badan meesha adigana meesha waxba kuma lihid ee midka aan ku sii qaado oo ka bax ayaa laga oranayaa kadib midkaas wuxuu oranayaa aniga ma yeelaya ayuu ka oranayaa ninka saaxiibkiisa kadib midka booska ayaa u imaanaya waxaanu bilaabayaa inuu dhirbaaxo midkan waxaan laga oranayaa adiga dabaal maantay si lagaaga xadi karaa ayaa laga oranayaa telefoon qaali ayaa meesha ku jira ayaa laga oranayaa kadib midkaas wuxuu bilaabayaa inuu calaacalo waxaanu ka oranayaa boos aniga san ma u maleeynin waa soo hore ayaa u socday mana eegin gadaasheeda wixii iga soo daba socday ayuu ka oranayaa kadib ninka booska aad ayuu warwarayaa maadaama bariiskiina laga khasaariyay iPhone-adii iyo telefoonadii qaaliga ahaana laga xaday kadib midkaas ayuu ka oranayaa adiga dabaal ayaa tahay mana shaqaysan si shaqadan waan ka eeyaa kadib midkaas wuxuu ka oranayaa waa ogaanina ayuu ka oranayaa kadib ninka booska iyo ninkii u shaqeynaya waxay bilaabayaan inay mootadii halka dhigaan oo inta kusoo dhuntaan waxaanay rabaan inay ogaadaan labadii nin tuugada ahaa ee wax ka xaday kadib midkaas ayaa sare kacayo midka tuuga saaxiibka ayuuna ku dhacayaa inta ay taala mootadii aan kasoo xadnay kadib midkan wuxuu bilaabayaa inuu ku dhaco adiga telefoonadii badnaa ayaa qaadatay adiga hadda doonayso doono ayuu ka oranayaa kadib midkan maadaama la khaymay oo labaduba yihiin laakiin labadii nin tuuga kadib midka saaxiibka ay tusaya waxaanu ka oranayaa waa ina kiish kale soo dilaacinaa kadib midkan wuxuu ka oranayaa kulli halkaas ay dadka ka agdhow yihiin ee yeenan aadin ayuu ka oranayaa kadib midkan uu ku qancin weynayaa kadib waxaanu ka oranayaa aniga waan aadayaa oo kiish bariis ayaan soo qaadanaya waxaana rabaa inaan telefoonada dhammaan ku jirta aan soo qaato kadib labada nin ee tuugta way heshiinayaan halkaas ayna dhiganayaan waxaanay bilaabayaan inay u tagaan halkii ay taalee mootada kadib ninka booska wuxuu ka oranayaa kulli way soo dhow yihiin oo tuugada inta kama dheera ee way imaanayaan ayuu ka oranayaa midkiisii shaqaalaha ahaa kadib waxay bilaabayaan in labadii nin tuugada ahaa yimaadaan kadib midkaas saaxiibka ayuu ka oranayaa adiga inorar ayuu ka oranayaa maadaama markii hore khaymay midkan kadib wuxuu bilaabayaa inuu ku raro kiishka bariiska kadib waxa uu oranayaa ninkan tuug weeyaan ayuu oranayaa soo gaadha kadib labada nin ee la iska lahaa ee ninka shaqaalaha ahaa iyo ninkii kale booska waxay bilaabayaan intuusan ninkan cararin inay soo qabtaan oo ka oranayaan adiga tuug ayaa tahay oo adiga ayaa xaday kadib ninka saaxiibkiina oo halkaas ayuu kaga carariyaa kadib waxay bilaabayaan ninkii intay qaraacaan inay gaadhiga dul saaraan oo ay bartaas ugu kaxeeyaan